بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي وسيرة عدة كجوجته تلياش عيدا مدى كلا دوان برا سابق قبل كمرودي تشيح مدحضة كليها هل كان جوجته إيا مرتي شرفته عيدا مدى كلا دوان هل كان سود diyaarsan militariga booliska iyo kuwa maaragtay ardayda kala duwan ba ah waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mudane madaxweyne iyadoo 18 May ay qarka inoo soo saarantay oo laba cisho qura ay naga xigto maanta ay tahay bisha 16 oo halkan maaragtay wafdigaad hogaaminayso aad ku soo booqatay ciidamadan kala duwan iyadoo ay ka mid tahay inuu diyaar garowga 18 May oo la khafiifiyay cudurka coronavirus-ka awgeed iyadoo quwadii ballaadhnayd aynu soo bandhigi jiray aynu khafiifinay waxa runtii halkan sidii korneelkiiga horeeyay sharaxay halkan imika jooga ciidanka booliska qayb kamida oo gaadiidkooda gaashaaman wata iyo ciidanka militariga oo kala duwan ardayle guutadii gaashaamayda taangiga leh iyo tignika kaleba maalinta madaxweyne inagu soo dhow oo aanoo fursadan ka faa'iideysanaya maalin inagu weyn aanu malaynayo cid kasta kuwa dhalan doona iyo kuwa maanta noolba xusuus weyn inagu leh dhiig badani soo daatay hanti badani ku luntay dadka reer Soomaaliland qof ilaabi kara aanu jirin ayaa waxaynu maaragtay xuskeedii baynu halkan uga sii diyaar garoobina anigoo taa ka faa'iideysanaya ciidanka booliisku madaxweyne kelmad kooban waxaanu u diyaar garoobaynaa insha Allah inaanu isbedel weyn samayno oo aanu reform ku samayno oo aanu arday reer saraakiil soo saaro iyadoo kulliyadii imka aad furi doonto dhawaan dhalinyaro yar oo aan balwad lahayn aanu diyaarinay gaadiid badan oo taladaadii iyo maskaxdaadii diyaar garoobeen isagoo ciidanka qaranku maanta naga caawiyo wax badan oo arrimaha gudaha ah oo ay ku mahadsan yihiin insha Allah sanadka dhow soo socda waxaanu diyaar garoobi doonaa inuu ciidanka boolisku intuu isbedelo ta gudaha ka adkaada insha Allah inaanu ciidan birmada oo adag aanu dhisi doono ciidanka militariga insha Allah iyagana caawiya waxa kale oo rabaa in halkan kaga faa'iideysto kelmad digniina u diro kuwa gudaha had iyo jeer cadawga gudaha ku jira noocu doonaya ha ahaado kuwa caalamka oo dhan cadawga waa ha ahaado kuwa criminalka ah ha ahaado kuwa afmiishaarinta nabadgelyada waxyeela ciidanka booliisku nin cid ka baxsan kartaa ma jirto ishana uu ku haya insha Allah Soomaaliland waxaan rajaynaynaa inaanu ka dabargoyno waxyaalaha noocaas waxaan ku soo gabagabeynayaa maadaama xuskii maydu inagu soo dhow yahay waxaan ciidanka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland anigoo afkooda ku hadlaya mudane madaxweyne waxaan hambaliyaynayaa maalinta inagu soo socota awgeed ciidanka booliiska iyo maaragtay saraakiishooda sare saraakiishooda hoose saraakiil xigeenada askarta maaragtay arfleyda iyo dableyda iyo sareeyayaashaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan ilaahay uga rajaynayaa maalinta xigta inaynu bash iyo barwaaqo ku gaadhno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh